damiirku maxuu yiri sidaacada ugu adeeg dadnimo qaaliya lahaw damiirku maxuu yiri sidaacada ugu adeeg dadnimo qaaliya lahaw lillahi kudade lillahi kudade lillahi kudade lillahi kudade dalkiya dadka dibsi u tahay dawladnimo dalkiya dadka dibsi u tahay dawladnimo difaac minni madad u tahay dawladnimo difaac minni madad u tahay dawladnimo danguud ilaaliyad u tahay dawladnimo danguud ilaaliyad u tahay dawladnimo dawladnimo joog dawladnimo joog daacadi mawduude daacadi mawduude dawad Somali dawtay dawad Somali dawtay daraja ciidamada dawtay daraja ciidamada dawtay daryeel maatida dawtay daryeel maatida dawtay kacayo waadin salaamay inaan idinkugu imaado garoonkii maxamed cawaale liibaan oo ah halyeygii calanka Soomaaliyeed waa maalin taariikhi ah waa ku mahadsantihiin shacabka reer Gaalkacyo waxaan uga mahad celinayaa soo dhaweynta diiran ay nagu soo dhaweeyeen aniga iyo wafdigayga waxaan leeyahay sharaf iyo karaamo ayaad mudantiin xalayto ayuu igu yiri madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo mar haddii aad Puntland timid waxaad u timid shacabkii ugu dawlad jeclaa dalka Soomaaliya waxaad ku jirtaa gacan wanaagsan labadaydii gacmood ay geestii waqooyi Gaalkacyo nabadba geesiyaal magac dhabo geygii lagu yaqaano Gaalkacyo ma nabadba halgankii gumaysiga gobonnimo u dirirka dhulkii lagu yaqaano Gaalkacyo ma nabadba gurigii cilmiga iyo diinta lagu gudbinayay ruuxday gogoshu taallaaye Gaalkacyo ma nabadba ra'iisul wasaare geesi Cabdirasaaq Xaaji Xuseen geygii uu ka yimid mudugay ma nabadba Gaalkacyo salaam naga guddooma nabad naga guddooma midnimo naga guddooma farxad naga guddooma gacan furo naga guddooma dawladnimo naga guddooma dhallinyarada Soomaaliyeed oo halkan nagu soo dhaweysay oo maanta dhan halkan taagneed waa mahadsantihiin waxaan idinkugu bishaaraynayaa in garoonkan la idin dhisi doono la idinkaga dhigi doono sida aad rabtaan haddii Ilaahay yiraahdo shacabka iyo dawladdu waa wadnihii iyo beerka qofka bini aadanka lama kala qaadi karo shacabka iyo dawladda dawlad aan shacab lahayna shacab ma aha shacab aan dawlad lahayna dawlad ma aha waad ku mahadsantihiin Gaalkacyo inaad idinku muujiseen tusaalahaas aan hore loo arkin waxaan rabaa dhallinyarada halkan joogta dadkii Soomaaliyeed ee ficil ahaa ee dhaliyay gobonnimada kuwii dhallinyarada ahaa ee ku jira SYL inta ugu badan waxay ka soo jeedeen gobolka Mudug
gobonnimadii ay dhaliyeen waxaa la rabaa idinku inaad sii waddaan soomaalinimada idinkaa la rabaa inaad ogtaan idinkaa la rabaa inaad horumarisaan waa mahadsantiin waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan maanta taagannahay isbartiibadii loogu magac daray halyeygii calanka heestii calankana laga tumaayo halkan waa dhiiggii soomaalinimada waa mahadsanteen waxaan rabaa inaan idiin sheego sanadku markuu ahaa 1948 waxaa jiray 2 wiil oo soomaali ah oo idinka da'diinoo kale ah waxaan rabaa inaad si fiican u dhegaysataan labadaas wiil waxaa la kala odhan jiray cabdullaahi ciise iyo maxamuud yuusuf muure allah u naxariisto cabdullaahina allah u naxariisto labadaasuba waxay ka soo jeedaan deegaannadan aad deggantihiin 1948 markii qaramada midoobay ay yidhaahdeen soomaaliya qofa soo dirsato uga hadla halgankeeda gobonnimo doonka talyaanigii halkan jooga wakhtigaas waxay yidhaahdeen maadaama aad cabdullaahi ciise dirsanaysaan waa in cirbad lagu duraa muuro allah u naxariistee oo cabdullaahi ciise u eka waxa uu yidhi inta adiga lagu duri lahaa oo sun lagu duri lahaa anigaa naftayda hibaynaaya waxaan rabaa aniga in lay duro markii la duray allah u naxariistee muuro cabdullaahi sidaas ayuu fiisaha ku qaatay sidaas ayuu u tegey qaramada midoobey sidaas ayuu uga soo hadlay xorriyaddii sidaas ayay xorriyaddii ku timid waxaan rabaa inaan idiin sheego marka fikirka ah muuro iyo cabdullaahi isku qabiil ma ahayn midna wuxuu ka soo jeeday waqooyiga gaalkacyo midna koonfurta gaalkacyo haddii qabiil uu wax taraayo mid baa wuxuu yidhi kan kale ka qabiila anigaa naftayda adiga kuu qadimaaya si adigu aad u waddo xorriyaddaas su'aasha la rabo maanta in la isweyddiiyo waxay tahay xorriyaddii wiilashaasi ay u dhinteen ammaanadii ay idin dhiibeen reer gaalkacyo xaggee bay ku dambaysay laguma hayn karo soomaali kala qaybsan laguma hayn karo soomaali xuduudyo kale leh sababtoo ah waxay nooga tageen taariikha in quluubta shacabka soomaaliyeed marna aanay xuduud kala yeelan karin ammaanadii la idiin dhiibay soomaalinimadii dhallinyaronimadii sharaftii xooggii caqligii cilmigii idinka ahaayo diyaar ma u tihiin soomaaliya midaysan soomaaliya sharaf leh soomaaliya xooggan soomaaliya soo ceshata meeshii ay dunida uga jirtay gobonnimada gaalkacyaa hormuud aheeda hormuudka ma qaadanaysaan qabyaaladda ma ku beddelaynaa qarannimo musuq maasuqa ma ku beddelaynaa iimaan iyo sharaf reer gaalkacyo hormuud ma u noqonayaan waxaan idinkugu imid inaan idinla wadaago qalbigayga sida aan raalli idinkaga ah waxaan rabaa inaan idiin sheego gaalkacyo nabad ah waa soomaaliya nabad ah gaalkacyo hagaagsan waa soomaaliya hagaagsan gaalkacyo isdhex gasha waa soomaaliya isdhex gasha xalka gaalkacyo isagoo midaysan waa kii midayn lahay soomaaliya waa inaad gaalkacyo soomaaliya uga dhigtaan tusaale si intana kale ay idinkugu daysadaan annaguna waan idin garab taagannaha gaalkacyo nabaddeeda waa idinkala shaqaynaynaa labada maamulba waan la shaqaynaynaa wax walba oo aad uga baahan tihiin dawladdana maamulkiinaan kala hadlaynaa dawladda federaalkaana gacan idin siinaysa sidoo kale waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo si loo xoreeyo dalka waxaan bilownay in ciidamo laga qoro dhuusamareeb
in laga qoro caabudwaaq in laga qoro xeraale in laga qoro hurshe in laga qoro barambal idinkana diyaar ma u tihiin dalkiinna inaad difaacdaan dawladdiinnuna diyaaray u tahay soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha midowdo reer gaalkacyo waqooyi iyo koonfurba waa soomaali aan la kala qaadi karin ilaahay ha idin barakeeyo